injiilka sida yooxana u qoray cutubka koowaad bilowgii waxaa jiray hadalkuna wuxuu la jiray ilaah hadalkuna wuxuu ahaa ilaah isagu ilaah buu la jiray bilowgii wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la'aantiis isaga waxaa la jirtay noloshuna waxay ahayd nuurka dadka nuurkuna wuxuu ka ifiyaa gudcurkana kama badin waxaa jiray nin xagga ilaah laga soo diray magaciisuna wuxuu ahaa yooxana isagu wuxuu u yimi markhaati furid inuu u marag furo nuurka inay dhammaan xaggiisa ka wada rumaystaan isagu nuurka ma uu ahayn laakiin wuxuu u yimid inuu nuurka u marag furo kaasi wuxuu ahaa nuurka runta ah oo iftiimiya nin walba oo dunida yimaada wuxuu ku jiray dunidana waxaa laga sameeyey xaggiisa oo duniduna ma ay garanayn isaga wuxuu u yimid kuwiisiina ma ay aqbalin isaga laakiin in allah intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay carruurta ilaah ku noqdaan kuwaas waa kuwii magaciisa rumaystay oo aan ka dhalan dhiigga ama doonistii jidhka ama dad doonistiis laakiin waxay ka dhasheen ilaah hadalkuna jidh buu noqday oo waa ina dhex joogay oo waxaannu aragnay ammaantiisii taas oo ahayd ammaantii u ekayd tan wiilka keliya ee aabbaha ee nimco iyo run ka buuxa yooxana waa u marag furay isaga wuxuuna ku qayliyey oo yidhi kanu waa kii aan idhi kan iga daba imanayaa waa iga horreeyey waayo hortay buu jiray dhammaanteed waxaynu buuxnaantiisa ka helnay nimco waayo sharciga waxaa loo soo dhiibay muuse laakiinse nimcada iyo runtu waxay ku yimaadeen ciise masiix ninna ma arkeen ilaah marnaba wiilka keliya ee laabta aabbaha ku jira kaasaa inoo sheegay kanu waa maraggii yooxana furay markii yuhuuddu yeruusaalem uga soo direen wadaaddo iyo kuwo reer laawi ah inay weydiiyaan oo ku yidhaahdaan yaa tahay isagu waa qirtay mana uu inkirin oo wuxuu qirtay oo yidhi anigu ma ihi masiixa markaasay weydiiyeen haddaba yaa tahay ma eliyaas baa tahay wuxuuna yidhi ma ihi ma nebigii baa tahay wuxuuna ku jawaabay maya waxay haddaba ku yidhaahdeen yaa tahay si aanu jawaab ugu celinno kuwiina soo diray yaad isku sheegaysaa wuxuu yidhi waxaan ahay codka kan cidlada kaga qaylinaya jidka rabbiga toosiya siduu nebi isaayos u yidhi kuwa la soo diray waxay ka yimaadeen farrisiinta markaasay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen haddaba maxaad dadka u baabtiistaa haddaadan ahayn masiixa ama eliyaas ama nebigii yooxana wuxuu ugu jawaabay oo ku yidhi anigu waxaan dadka ku baabtiisaa biyo laakiin dhexdayna waxaa jooga mid aydnaan garanaynin oo ah kan iga daba imanaya kan aanan istaahilan inaan yeelmaha kabihiisa furo waxyaalahaas waxay ka dhaceen baytaniya taasoo ku taal webi urdun shishadiisa oo ahayd meeshii yooxana dadka ku baabtiisayey maalintii labaad yooxana wuxuu arkay ciise oo ku soo socda oo wuxuu yidhi bal eega wanka ilaah ee dembiga dunida qaadaya kan waa kii aan idhi waxaa iga daba imanayaa nin iga horreeyey waayo hortay buu jiray anigu ma aan aqoonin isaga laakiin inuu israa'iil u soo muuqdo sidaa daraaddeed ayaan u imid anigoo dadka biyo ku baabtiisa yooxana waa marag furay isagoo leh waxaan arkay ruuxa oo samada uga soo degaya sidii qooley oo kale wuuna dul joogsaday isagii anigu ma aan aqoonin isaga laakiin kii ii soo diray inaan dadka biyo ku baabtiiso wuxuu igu yidhi kii aad ku aragtid ruuxa oo ku soo degaya oo ku dul joogsanaya kaasu waa kan dadka ku baabtiisa ruuxa quduuska anigu waan arkay waana u marag furay in kanuu yahay wiilka ilaah mar kale maalintii dambe yooxana waa taagnaa isaga iyo laba xertiisii ahayd oo wuxuu arkay ciise oo socda markaasuu yidhi bal eega wanka ilaah labadii xerta ahayd way maqleen isagoo hadlaya wayna raaceen ciise markaasaa ciise soo jeestay waana arkay iyagoo raacaya kolkaasuu ku yidhi maxaad doonaysaan waxay ku yidhaahdeen rabbi waxaa lagu fasiraa macallin xaggee baad deggan tahay wuxuu ku yidhi kaalaya oo arka markaasay yimaadeen oo arkeen meeshuu deganaa
wayna la joogeen maalintaas goortaas waxay ahayd abbaaraha saacaddii 10aad mid ka mid ah labadii maqashay yooxana oo raacday wuxuu ahaa andros simon butros walaalkiis isagu wuxuu hortii doonay walaalkii simon oo ku yidhi waxaanu helnay masiixa kan lagu fasiro kiristooska markaasuu wuxuu u geeyey ciisena intuu eegay ayuu wuxuu ku yidhi adigu waxaa tahay simon ina yoonis waxaa lagu odhan doonaa kayfas oo fasirkiisu yahay butros maalintii labaad wuxuu doonayay inuu galili tago oo wuxuu helay filibos ciisena wuxuu ku yidhi isoo raac filibos wuxuu ahaa reer beytsayda taas oo ah magaaladii andros iyo butros markaasaa filibos wuxuu doonay natana'el oo ku yidhi waxaanu helnay kii muuse sharciga ku qoray wax isaga ku saabsan oo nebiyadiina ay qoreen wax isaga ku saabsan waana ciisihii reer nasaareed oo ah ina yuusuf natana'el wuxuu ku yidhi ma wax wanaagsan baa ka iman karaa naasaret markaasaa filibos wuxuu ku yidhi kaalay oo arag ciise wuxuu arkay natana'el oo ku soo socda oo wuxuu yidhi bal kan waa mid reer israa'iil oo run ah oo aan khiyaano lahayn markaasaa natana'el wuxuu ku yidhi xaggee baad igu tiqeen ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi intaan filibos kuu yeedhin markaad geedkii bardaha hoostiisa joogtay ayaan ku arkay kolkaasaa natana'el u jawaabay oo ku yidhi macallimow waxaad tahay wiilka ilaah oo waxaad tahay boqorka israa'iil ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi ma waxaad u rumaysatay odhaatinkii aan kugu idhi geedka bardaha hoostiisa ayaan kugu arkay waxaad arki doontaa waxyaalahaas ka waaweyn markaasuu ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay waxaad arki doontaan samadoo furan iyo malaa'igahayda oo kor u kacaya oo ku soo degaya wiilka aadanaha